munaasabad ballaaran oo lagu maamuusay xuska 1 Luulyo maalinta gobonimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed ayaa waxay ka dhacday degmada Galinsoor ee gobolka Galgaduud. Munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Galinsoor, ururka dhalinyarada degmada, xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug, musharaxiin, odayaasha dhaqanka iyo haweenka, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, iyagoona si wadajir ah uga qayb qaatay dabaaldegga maalinta xorriyadda. Munaasabadani waxaa hirgelinteeda iyo taabagelinteeda iska kaashaday Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowlad Goboleedka Galmudug iyo hay'adda CBD, kuwaas oo door muuqda ka qaatay qabsoomidda xafladani. Ugu horreyn, xafladani waxaa daahfuray Gudoomiye ku-xigeenka degmada Galinsoor, Farxaan Cismaan Maxamed. waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto runtii degmadan Galinsoor iyo hareeraheeda waxaa ka jira dhibaatooyin badan. waxaan rabaa marka inaan ku baraarujiyo dhalinyarada iyo bulshada ku nool degmada Galinsoor inay ka shaqeeyaan nabadda. waxaa meel lagu gaarayaa in laga shaqeeyo nabad, waxaa horumar lagu gaarayaa in laga shaqeeyo nabad, waxaa dawladnimada kaabahaya in laga shaqeeyo nabad. waxaan rabaa inaan anugu iraado caawa aan ka shaqayno nabadda iyo xasilloonida, iyo aan ka qayb qaadanno dib u heshiisiinta bulshooyinka deegaanadan ku heeraaran, dhalinyaro iyo culummo iyo odayaal iyo maamul intaba. waxaan rabaa inaan ka codsado inaan ka shaqayno nabadda degmadan Galinsoor iyo nawaaxigeeda. sidoo kale xafladan quruxda badan waxaa nagala qayb qaatay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowlad Goboleedka Galmudug iyo hay'adda CBD. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin, sharaf iyo karaamaad leedihiin. waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto runtii degmadan Galinsoor iyo hareeraheeda waxaa ka jira dhibaatooyin badan. waxaan rabaa marka inaan ku baraarujiyo dhalinyarada iyo bulshada ku nool degmada Galinsoor inay ka shaqeeyaan nabadda. waxaa meel lagu gaarayaa in laga shaqeeyo nabad, waxaa horumar lagu gaarayaa in laga shaqeeyo nabad, waxaa dawladnimada kaabahaya in laga shaqeeyo nabad. waxaan rabaa inaan anugu iraado caawa aan ka shaqayno nabadda iyo xasilloonida, iyo aan ka qayb qaadanno dib u heshiisiinta bulshooyinka deegaanadan ku heeraaran, dhalinyaro iyo culummo iyo odayaal iyo maamul intaba. waxaan rabaa inaan ka codsado inaan ka shaqayno nabadda degmadan Galinsoor iyo nawaaxigeeda. sidoo kale xafladan quruxda badan waxaa nagala qayb qaatay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowlad Goboleedka Galmudug iyo hay'adda CBD. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin, sharaf iyo karaamaad leedihiin. waa maalin ay midoobeen gobollada waqooyi iyo gobollada koonfureed, isla markaana ay dhisantay jamhuuriyadda madaxa bannaan ee Soomaaliya. waa maalin aan si weyn u muujinno Soomaaliya oo dhan. waa maalin aan weyneyno, waa maalin xusuus gaar ah nagu leh oo geesiyaashii SYL ee Soomaaliyeed ay xorriyadda iyo midnimada iyo wadajirka dalkeenna ay yegleeleen. dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxaa waajib ku ah in ay ilaaliyaan wadajirka, nabadda iyo midnimada dalkeena. oo ay ku beegan tahay 1 Luulyo, waxaa sharaf weyn loo ah inaan halkan ku xusayno xafladda iyo munaasabadda qiimaha badan 1 Luulyo oo ah munaasabad qiimo weyn ugu fadhida ummadda Soomaaliyeed. leenahay oo ugu hambalyeynayna ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. xafladan oo ka dhacaysa degmada Galinsoor Soomaaliyeed meel walba ay joogaan
dunida daafaheeda waxaan leeyahay hambaliyo munaasabadu waxay noo soo bilaabatay 26 Juun haddana waxaan maraynaa 1 Luulyo munaasabadaas taxanaha ayaa noo soo socotay annaga reer Galinsoora si fiican baan ugu baraarugsannahay marka waxaan leeyahay hambaliyo kollayba xornimada waxaan ka qaadanay gumaystii maanta waa maalin ugu weyn oo nagu ballaaran weeye waxaan marka soo dhawaynayaa midnimada ummadda Soomaaliyeed in loo istaago loo midoobo cadowgeeda la iska ilaaliyo waa badan yahay waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba aan u istaagno ummadda aan ku wacdigelinno awlaadeenna aan ku dhowrno aan ku barbaarinno awlaadeenna wixii laga soo maray caalamka Soomaaliya oo harsanayno ilaahay uu sugnaatay sidoo kale waxa leeyahay maanta waa maalin weyn waa maalin mudan xusnaan meeqaam isdhageysi iyo horumar sidoo kale waxa leeyahay maanta waa 1 Luulyo waa maalintii ay midoobeen oo xornimada qaadanay gobolada koonfurta iyo waqooyiga ka soo wareegatay 66 sano 1996 ah midoonay waxa leeyahay hambaliyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale hay'adda CBD hambaliyo